ciidamada madaxtooyada Galmudug oo ugu dambeyn soo afjaray maleeshiyad hubeysan oo beesha Saleebaan ah oo isbaar dhigtay deegaanka Godin Labe. Taas waa Godin Labe ciidanka madaxtooyada Galmudug cibaadeysta naarka niyo meeshaas ku ag fadhiyo ku yaro gaagaabo maleeshiya beelado oo xirtay wadada. Raggan Saleebaanka u dhashay ee isbaarada u taalay Godin Labe ayaa sheegay in wiilashoodii saddexda ahaa ee dudublaha intay u tageen xasuuqay maalmihii la soo dhaafay jirdil lagu hayay taana ay ka caroodeen. Laakiin madaxtooyada ayaa qabatay shaqo muhiim ah oo bulshada reer Galmudug ay aad u soo dhaweeyeen. Waxaan rabaa inaan kula wadaago xog walba oo aad uga baahan tahay ciidamadii maleeshiyaadka ahaa iyo kuwii madaxtooyada Galmudug ka tirsanaa ee saacadihii la soo dhaafay isku hor fadhiyay deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud. Balse intaanan xogta faahfaahsan guda galin, waxaan marka hore ka codsanayaa inaad muuqaalkan qabato oo aad like saarto, sidoo kale qabo oo share garay maadaama ay xogta xog muhiim ah tahay. Share garaynta ha ka hilmaamin aragtidaadana qaybta hoose ee comment-iga noogu reeb sidee u aragtaa in ciidamo ka tirsan madaxtooyada Galmudug ay maanta muujiyeen shaqo hal abuur leh isla markaana dadka deegaanka ay ku farxeen maadaama ay ku guuleysteen in si nabad ah iyadoon xabad dhicin ay isbaaradii Godin Labe taalay ay gabi ahaan baqaadeen. aragtidaada qaybta hoose ee comment-iga inuu la wadaag soo dhawaada. Wararka aynu ka helayno qaybo ka tirsan gobolka Galgaduud gaar ahaan deegaanka Godin Labe ayaa sheegaya in saacadihii la soo dhaafay halkaasi ay is hor fadhiyeen ciidamo maleeshiyad ah oo ka soo jeeda magaalada Cadaado iyo sidoo kale ciidamo ka tirsan madaxtooyada Galmudug. ciidamada maleeshiyadka ah ayaa shalay waxa ay isbaara dhigteen isla markaana ay badiideen in isku socodka gaadiidka ay dhex maraan magaalada Godin Labe oo u dhaxaysa magaalooyinka Cadaado iyo magaalada Dhuusamareeb ee caasimadda Galmudug. raggan Saleebaanka ah ayaa aad uga caraysnaa isla markaana ka xumaaday sida wararku ay sheegeen in saddexdii wiil ee Saleebaanka u dhashay ee lagu eedeeyay inay laayeen isla markaana ay xasuuqeen qoys Soomaaliyeed oo duduble u dhashay in raggaasi qayb kamid ah markaasi xaniyaha biinso looga qabtay isla markaana maamulka Galmudug ay ku eedeeyeen in raggii la xukumay oo dhowrka sano xabsiga lagu xukumay in xabsigii loo daba maraynayo oo rag saraakiil ah ay biinso xaniyaha uga qabanayaan isla markaana ay dhahayaan dambi aysan gelin qirta. taas ayay ka xumaadeen ciidamada maleeshiyadka ah ee Saleebaanka u dhashay waxayna sheegeen in Galmudug aan la isaga socon doonin. maamulka Galmudug ee uu qorqor hogaamiyo ayaana amray in ciidamada madaxtooyada ay ku baxaan deegaanka Godin Labe isla markaana talaab ay ka qaadeen maleeshiyadkaas calooshish u shaqaystayaasha ah ee isbaarada dhigtay magaalada Godin Labe. waxaa halkaasi gaaray ciidamo ka tirsan madaxtooyada Galmudug iyagoona ciidamadaasi iyo saraakiishii hogaaminaysaba ay qaateen go'aan muhiim ah taa oo ahayd in ay si nabad ah markaasi ay ku qaadaan isbaaradii iyo maleeshiyadkii isbaarada u taalay deegaanka Godin Labe ee gobolka Galgaduud. xaaladda magaalada Godin Labe ayaa haatan ah mid aad u degan. maleeshiyadkii Saleebaanka u dhashayna waxay dib ugu laabteen magaalada Cadaado oo ay markii horeba ka soo ruuqansadeen. bulshada reer Galmudug ayaa si weyn xilligan u amaanaya xilkasnimada ay muujiyeen saraakiisha ugu sareysa madaxtooyada Galmudug maadaama ay ku baxeen goob ay ku sugnaayeen ciidamo maleeshiyad ah oo aad u fara badan iyagoona xakameeyay in halkaasi aysan wax xabad ah ka dhicin isla markaana uusan khasaare halkaasi ka imaanin. waana arin bulshada reer Galmudug ay aad ugu markaasi amaanayaan saraakiisha hogaaminaysay ciidamadii madaxtooyada ee Dhuusamareeb ka ruuqansaday. waxaa la filayaa in daqiiqadaha soo aadan ay magaalada Dhuusamareeb ku soo laabtaan ciidamadii madaxtooyada ee howlgalka u aaday magaalada Godin Labe. xaaladda deegaanka Godin Labe ayaana haatan ah mid aad u degan. wixii ka soo kordha xaaladahaasi wararkeena iyo barnaamijyaadkeena dambe ayaan idinku soo gudbin doonaa. nabadgelyo.